في الأولى وفي أخراك أفلحت في الأولى. اعلم بأن الله يعلم كل ما في الكون لا يخفى على مولاك. شيطان نفسك حاضر متأصل يبغي بك النار التي تصلى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. درسيgan wuxuu ka bilaabanayaa aayadda 37 ee suuratu Nisaa. Aayaddan waxay ku xiran tahay darsigeena hore aayaddii ugu dambeysay markii Allah uu soo yiri markii Ilaahay uu ka soo waramay xuquuqda Allah uu leeyahay iyo bini aadanka kale oo sagaal laga tiriyay xuquuqda ay leeyihiin in la ilaaliyo la dhaqaaleeyo oo ihsaan loo sameeyo. Allah wuxuu soo yiri inna Allah la yuhibbu maj'ala macnaha waa necab yahay way man qofkii kaana ahaaday muqtaalan mid xaraga kibir badan waa santaagid badan yahay dadku maxaan ku raahday u faanaya waa kibir badan yahay fakhuuran oo faan badan inta wax uu sheegayaa cilmi badan baan leeyahay xoolaan leeyahay xaqan leeyahay dadku inuu u faano jecel yahay ilaahay waa necab yahay subxaanahu wa ta'ala qofka tilmaamaha leh. alladina kuwii way kuwaas sifaata kale ay leeyihiin ayaa ilaahay inuu sheegay oo lagu haydaartaynayo. alladina kuwii way kuwaas yabkhaluuna bakhaylay oo wixii ilaahay uu siiyay bay ku bakhaylayaan waxba ka bixin maayaan. ويأمرون وحين فريا الناس dadka kalena waxay faraya بالبخل inay bakhaylaan oo waxooda aanay bixin. qofka la iimka la yiraahdo isaguna wax bixin maayo cidii wax bixisana waa necbiye oo hadduu arko cid wax bixinaysa waa ka xumaanay markaas wuxuu leeyahay waxaaga hayso adaa u baahan oo waa kaas xaaska iyo caruurta iyo waka ee aday ku sugayaan doqon iyo waxaaga dhaqaalayso saas oranay waa la iim waaka meeshii isaga la rabay inuu wax bixiyo kiisi markuu daystay cid kale wax bixisana ma ogola dadka qaar baa dhaqanka leh. alladina kuwii way kuwaas yabkhaluuna bakhaylaya wixii ilaahay uu siiyay ku bakhaylayaan ay bima aataahum Allah oo waxba ka bixin maayaan xaqi ilaahay ka bixin maayaan xaqa adoomana ka bixin maayaan. xuquuqda aynu soo marnay ee cibaadada ilaahay ka sokow sagaalkii qolo oo xaq lahayd xuquuqdoodii siin maayaan. ويأمرون وحين فريا الناس dadkii kalena waxay farayaan bilbukhli bakhaylnimada dadka barayaan ay farayaan. ويكتمون waxay qarinayaan maaki aataahum Allah ilaahay uu siiyay oo min fadlihi dheeraadkiisa wixii nicmaa oo ilaahay siiyayna way qarinayaan macnaha oogadooda ka muuqan mayso waxay leeyihiin waxba ma haysano afka saasay ka oranay oogadooda iyo caruurtooda iyo xaaskoodana ka muuqan mayso faqiir baad moodaysa. nabigu waa tubiyay calayhi salaatu wasalaam qofka hadii ilaahay u nicmeeyo ilaahay wuxuu jecel yahay nicmadiisu inay ka muuqato faan iyo hadii lama rabo laakiin nicmada ilaahay ku siiyay waa inay ka muuqato. hadaad qani tahay adigii qofka faqiirka ah ee dhulka jiifa inaad isku u dhaqantaan ma ah fadliga ilaahay waa inuu ka muuqdo. marka fadliga wixii ilaahay ugu deeqay bay qarinayaan oogadoodana ka muuqan mayso dadkooda siin mayaan zakadii ka bixin mayaan sadaqadii ka bixin mayaan waxa ma haysto la soo taagan yahay. Allah wuxuu waactadna waxaanu u diyaarin lil kaafiriina kuwa gaalada ah oo nicmada ilaahay qariya baa li saasa loo jeedaa baa li meesha wixii ilaahay ugu nicmeeyay kuwa qariya oo xaqa ilaahay iyo xaqa adoomada aan ka gudan waxaanu u diyaarin cadaaban cadaab muhiinan oo ihaanaynayo duleynaya ayaan u diyaarinay baa ilaahay. walladina kuwii weeye wali sifaadkoodii baa socda ama tilmaamo kale ay leeyihiin. والذين kuwaana waa kuwa kale oo kuwa hore waxay ahaayeen kuwa aan waxba bixinayn xaqi ilaahay iyo xaqa adoomaha ay ku lahaayeen bixin may bakhayliin bay ahaayeen wixii wax bixiyana waa nabcaayeen dadkiina wax bixiyaan waa wadigay. kuwaana waa kuwa kale aan khayr lahayn waxbay bixinayaan iyagu laakiin markay wax bixinayaan ilaahay dartii u bixin mayaane dadka istusaya waa deeqsi hal la yiraahdo wuxuu bixiyaa hal la yiraahdo ayay ka tahay. Allah wuxuu والذين كوي ينفقون بحني أموالهم حولهذا
ri'aa'a annaasi xaal ay yihiin kuwii dadka istusaya waa deeqsiyiin ha la yidhaahdo ayay wax bixinayaan oo walaa yu'minuuna rumayn mayaan kuwaas billaahi allah ma rumaysan walaa bilyowmi alaakhir maalinta dambana ma rumaysna maxaa yeelay allah iyo qiyaama hadday rumaysan yihiin ilaahay dartiisay wax u bixin lahaayeen walaa yu'minuuna rumayn mayaan billaahi allah walaa bilyowmi alaakhiri iyo maalinta dambe riyaha wax loo bixiyaa maanta aad buu u badan yahay weliba sharikaadka qaarkood ilaa ay arkaan cid kaloo wax bixisay oo tartan uu kala dhexeeyo inaysan waxba bixin baa laga yaaba oo sadaqada iyagoo aanay bilaabin sadaqada marka khatar bay ku jirta ilaahay markii wax la bixinayo ilaahay dartii waa inay tahay suuqgeyn iyo adiga maxaan ku idhaha dadka kusoo jiidayo hadday noqoto haddii riyaa annaas bay noqonaysa allahu mustacaan waman yakun ishaytaanu shaydaanku qofku u ahaaday lahu isaga qariinan mid la xiriira oo saaxiib la ah macnaha dadka noocaas sifaadkaas leh markay wax bixinayaan istuska wax bixinaya allah iyo qiyaamo aan rumaysnayn shaydaan baa saaxiib la noqday wey oo waday la noqday waman yakun ishaytaanu shaydaanku qofku u ahaadana lahu isaga qariinan waday uu noqdo iyo saaxiib fasaa waa xumaaday shaydaankii qariinan saaxiib cid noqotana shaydaan baa ugu xun ilaahay baan ka maangallay subxaanahu wa tacaala allah wuxuu yidhi wamaadaa calayhim war korkooda maxaa ahaan lahaa maxay ka cabsanayaan maxaa soo gaari lahaa kuwaas low aamanuu hadday rumayn lahaayeen billaahi allah walyowmi alaakhiri iyo maalinta dambe oo qiyaamada ah hadday rumayn lahaayeen maxaa ku dhici lahaa waxbana wey oo wa anfaquu ay bixin lahaayeen mimaa kii xaggiisii rasaqahum ullahu ilaahay uu ku arsuqay ay wax ka bixin lahaayeen maxaa gaari lahaa waxba ma gaareen laakiin waa aqoon ee shaydaan uu duufsaday oo bilaayo gacantay u haatisay wamaadaa calayhim korkooda maxaa ahaan lahaa macnaha waxba ma soo gaareen wey maxay ka cabsanayaan inay ku dhacaan low aamanuu hadday rumayn lahaayeen billaahi allah walyowmi alaakhir oo wa anfaquu ay bixin lahaayeen mimaa kii xaggiisii rasaqahum ullahu ilaahay uu ku irsaaqay oo ilaahay uu siiyey hadday wax ka bixin lahaayeen maxay ka cabsanayaan waxay ka baqayaan ma jire qola dhuntay wey wa kaana allahu allah wuxuu ahaa bihim kuwaas caliiman allah u ogaal badano wax kastoo ay samaynayaan ilaahay waa og yahay ilaahay baana ka abaalmarinaya oo kala xisaabtamaya wey in allaha allah laa yadlimu ma dulmiyo mithqaala darati ay shay-an waxba kama dulmiyo dadka shaygaasu mithqaala darati uguriyacaso miisaankeed wax la eg ah wain taku haddii ay tahay qofku waxa uu sameeyey xasanatan wanaag haddii ay tahay wax ajar laga helayo yudaacifhaa xasanadii ilaahay qofkii waa u laablaabaya waa u badinaya wa yu'ti wuxuuna ka siinaya min ladunhu agtiisa qofkaas ilaahay wuxuu ka siinaya ajran abaal cadiiman oo aad iyo aad u weyn waa jannadii aayaddanna waa bishaaro kale ilaahay inoo bishaaraynayo subxaanahu wa tacaala allah wuxuu yidhi dadku waxay la yimaadaan dara waxaa la arko waxa ugu yar wey culimmadu waxay in badan ku fasiraan dhuuriya casada cascasoo yaryarka ah qaarkoodna waxay yidhaahdeen waa habaaga waxaa la yidhaahda markii galabtii ama subaxdii daaqadaha la furo waxa yaayaacayo ka soo galaho ishu waa qabanaysa laakiin haddaad istiraahda qabo ama daaqadda aad xidhid arki maysa calaa ayi xaal waxa dadku ay dareemi karaan waxa ugu yar wey qofku hadduu la yimaado oo xasano ah oo wanaag ah ilaahay subxaanahu wa tacaala ka dulmin mayahe ajarkiisii buu siinaya oo uu leeyahay waxa uu la yimid hadduu wanaag yahayna weliba ilaahay waa u laablaabayaa waa ka hadduu siya iyo xumaan yahayna ilaahay dulmin maye ama waaba u cafinayaaba ama intii in la eg ayaa ilaahay ku abaalmarinaya subxaanahu wa tacaala ama intii keliya loo qoray in allaha allah laa yadlimu ma dulmiyo mithqaala darati culimada qaarkood waxay yidhaahdeen mithqaala waa sifo mawsuufkii meesha kugu qadaran yahayo macnaha shay-an shayna cidna ilaahay kama dulmiyo shaygaasoo mithqaala darati dhuuriyacaso miisaankeed wax la eg ah wain taku haddii ay tahay ay alcamaliya qofka waxa uu sameeyey xasanatan hadday tahay culimada qaarkood waxay yidhahdeen kaanadaani waa tii taamada ah xasanatun markaa waa gude wain taku ay weyn wujida haddii la helo
xasanatun wanaag qofku uu sameeyo yudaacifhaa xasanadii ilaahay waa u laablaabay 10 jeer ilaa 700 jeer ilaa intii ilaahay uu doono ayaa ajarkeed u laablaabay wayuuti allah wuxuu siinaya min ladunhu agtiisa wuxuu ka siinayaa qofkaas ajran abaalmarin cadiiman oo aad iyo aad u weyn waa bishaaro weyn waxay yaraayo aad la timaadid in badan baa ilaahay uu ku laablaabaya subxaanahu wa tacaala allah wuxuu yidhi fakayfa sideebuu ay xaaluhu xaalkooda sideebuu noqonayaa dadka idaa ji'naa markaanu la nimaadno min kulli ummatin ummad walba xaggeeda bishahiidin markhaanti markaan kala nimaadno aayadana ilaahay wuxuu inoo ku sheegaya maalinta qiyaamada ummad walba cid ku markhaanti kacda ilaahay inuu ka soo dhex saaray waxaana ugu horeeya waa ummad walba rasuulkii ilaahay u soo diray subxaanahu wa tacaala dadka muslimiinta ana maalintaas waxaa ku markhaanti kacayo dhexdooda laga soo saaraya nabiyullaahi maxamed sala allahu calayhi wasalam fakayfa sideebuu ay xaaluhu xaalkooda sideebuu ahaanay dadkii idaa waqtigii ji'naa aanu la nimaadno min kulli ummatin ummad walba xaggeeda markaanu ka soo saarno bishahiidin mid ku markhaanti kacaya oo waji'naa aanu la nimaadno bika adiga rasuulka ilaahay oo aanu kula nimaadno calaa haaulaa'i kuwaas waa ummadaada ummadda muslimiinta ah ama ummatu dacwa shahiidan xaal aad tahay mid ku markhaanti kacaya arrintu maalintaas sidee noqonaysa aad bay u adkaanaysaa wey waxaa ka sugnaatay nabiga calayhi salaatu wasalaam saxaabiga cabdullaahi ibn mascuud inuu ku yidhi qur-aanka igu akhri aan kaa dhegaystay markaas wuxuu ku yidhi rasuulka ilaahayow adigoo qur-aanka lagugu soo dejiyey miyaan kugu dul akrinaya waxaan jeclahay buu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam inaan cid kale ka maqlo markaasuu wuxuu soo bilaabay suuratu nisaa aayaddan goortuu marayay ayaa nebiga eegay buu yidhi mase labadiisii indhood biyaa ka shumay ilmaa ka tirirkhleh macnaa saameynta qur-aanku uu saameeyey markaas nebigu wuxuu yidhi xasbuk warukaadi mase nebiga indhihiisa ilmaaba ka shumaysaba calayhi salaatu wasalaam fakayfa sidee buu ahaanaya dadka xaalkooda idaa ji'naa markaanu la nimaadno min kulli ummatin ummad walba xaggeeda bishahiidin markhaanti markaan kala nimaadno oo waji'naa aanu kula nimaadno rasuulka ilaahayow bika adiga calaa haaulaa'i kuwaa korkooda ee waa ummatu dacwa cid allaale ciddii nebiga loo soo saaray calayhi salaatu wasalaam shahiidan adigoo ku markhaanti kacaya yooma idin maalintaas yawaddu waxay jeclaanayaan alladiina kuwii kafaruu gaaloobay oo wacasow caasiyey alrasuula rasuulka muxamedana caasiyey calayhi salaatu wasalaam waxay jeclaanayaan low tusawaa an tusawaa lowdaana waa tii masderiyada ah in lagu simo bihim iyaga al-ardu dhulka in lagu simo ayay jeclaan lahaay aayaddan ilaahay wuxuu inoo ku sheegay ayaantaas waa qiyaamo markii la tago oo nebigu ummaddiisa oo ku markhaanti kacayo calayhi salaatu wasalaam siday nebiga u raaceen wixii ay la yimaadeen waa kan kuwa gaalada ah oo nebiga caasiyey maalintaa waxay jeclaanayaan dhulka intuu kala dilaaco intay dhex galaan in lagu simoho meel ay joogaanba la waayo si ay naarta uga fikadaan lagana yeeli maayo yowma idin maalintaas nebigu dadka uu ku markhaanti kacayo calayhi salaatu wasalaam yawaddu waxay jeclaanayaan alladiina kuwii kafaruu gaaloobay oo wacasawu rasuula wacasow caasiyey alrasuula rasuulkana caasiyey sala allahu calayhi wasalam low tusawaa an tusawaa in lagu simo bihim iyaga al-ardu arladii in lagu simoho arladii intay galaan in lagu baabi'iyo lagu simo dhulka ay la sinmaan ayay jeclaan lahay si cadaabka ilaahay uga fikadaan laakiin taas suurtoobi mayso walaa yaktumuuna allaha ilaahayna ka qarin mayaan maalintaas xadiisan wax war ana ilaahay ka qarin mayaan adduunyadii waxay soo mareen iyo wixii ilaahay ku caasiyeen ilaahay ka qarin mayaan waa mararka qaarkood marara isku dayayaan waa jiraan inay yidhaahdaan gaalo ma ahayno muminiin baan ahayno waka waa marka afkooda la xirayoho xubnahooda laga hadal siinayo allah wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina waroy kuwii aamanuu rumeeyeenow laa taqrabu salaa aayaddaanna mar kale ayaa axkaamtii loo noqdo ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku reebaya qofku hadduu yahay mid sarkhaan ah oo daroogo ku sarkhaamay salaad inaanu u dhowaan oo salaad aanu tukan karin oo aayaddaani waxay soo degtay intii khamriga ama daroogada
toos aan loo xarimin maxaa yeelay khamriga ama daroogada xarimitaankeedu waxay soo marnay heerar kala duwan maka intii la joogay ilaahay waaba ugu mana sheegtay subxaanahu wa tacaala suuratu naxl ayaan ugu tegi doonaa tattakhiduuna minhu sakaran wa risqan xasana waxaad ka samaysanaysaa cinabka iyo timirta iyo waxaad ku wareedhaan baa ilaahay waa ka dabadeed waxaa soo degtay aayaddii suuratulbaqara yas'aluunaka can alkhamri waalmaysiri qul fiihima ismun kabiirun wamanaaficu linnaas wa ismuhumaa akbaru min nafcihima aayaddaas waa laga dayriyey laakiin laguma xarim waxaa la yidhi dembigooda iyo khayrkooda ee dembigooda badan si la isaga daayo aayaddan baa ku xigtay oo allah wuxuu leeyahay markaad daroogada cabtaan masaajidda iyo salaada iyo ha u dhowaanina maxaa soo baxaya markaas haddii qofka maalinta 5 salaadood baa laga rabaa bahashana qofka jirkiisa ugu yaraan dhowr saacadood bay ku jirtaa qofka tukanaya waaba iska daynaya maxaa yeelay waxa weeye haddii duhurkii uu cabo dee casarkii waxa weeye weli waa sarkhaan hadduu casarkii cabo maqribkii weli waa sarkhaan marka dad badan baa markaa iska daayeen ugu dambeyn waxaa soo degtay aayaddii suuratu almaa'ida oo ugu dambeyn ba ilaahay uu ku xarimay yaa ayuha aladiina aamanuu inama alkhamru waalmaysiru waalanصaabu waalazlaamu rijsun min camali shaydaani fajtanibuuh ilaa aakhiri alaaya markaas ayaa la dabar tiray la joojiyay sidoo kale aayadda ilaahay wuxuu inoogu sheegayaa qofka haddii janaabo ay ku dhacdo wax qubays waajibiya hadday ku yimaadaan ilaa uu ka qubaysanayo salaad inaan u dhowaanin isaguna sidoo kale ilaahay wuxuu inoogu sheegaya dadka loo ogol yahay inay gogobaystaan markii biyihii ay waayaan ama biyaha inay isticmaalaan ay awoodi waayaan qofku markuu xanuunsado ama safarka dartiis ayuu biyihii la waayey ama maxaan ku rahdaye intuu suuligii galay ayuu biyo waayey in la gogobaysanayo iyo xubnaha laga gogobaysanayo oo wejiga iyo labada calaacalood ah allah wuxuu yaa ayuha aladiina waray kuwii aamanuu rumeeyeenow laa taqrabuu ha u dhowaanina asalaata salaadii ha u dhowaanina macnaha ha tukanina wey walxaala antum idinkoo sukaaraa kuwa sarkhaansan idinkoo ah oo caqligii uu idin maqan yahay xataa taclamuu ilaa aad ka ogaanaysaan maa taquuluun waxa aad ku hadlaysaan oo macnaha miyirku idiin soo noqonayo salaadii ha tukanina walaa junuban waxay ku cadfan tahay wa antum sukaara walaa junuban xaal aad tihiin kuwa jinaabo qabana salaadii ha u dhowaanina ilaa caabirii sabiilin jid kuwa goynaya inaad tihiin mooye oo masaajidkii ka gudbaya dhexdiisa aan ku nasan aan fariisanayn xataa takhtasiluu inta aad ka mayranaysa halkan laba tafsiir bay culimmadu gelaya labada tafsiirna waxay kala raacayaan asalaat salaada maxaa loola jeeda culimmada qaar waxay yidhaahdeen waxaa loo jeedaa salaadii lafteeda qolana waxay yidhahdeen waxaa loo jeedaa meelihii salaada lagu tukanayey waa masaajidkii mardii masaajidka hadii laysu diidana salaadii waa laysu diiday oo markaa waxay noqotay min baabi dikri alxaali wa iraadati almaxalli haddii marka la yidhaahdo waxaa loo jeedaa salaadii ilaa walaa junuban ilaa caabirii sabiilin culimmadu waxay ku fasireen rag badan oo culimmada ka mid ah qofkii musaafirka ah haddii loo jeedo amaakinu salaa masaajidiina ilaa caabirii sabiilin culimmada in badan baa markaa waxay ku fasireen qof ka gudbaya masaajidkii labada tafsiir baa hal mar baan maraynaa ee ha loo dhug lahaado allah wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina waray kuwii aamanuu rumeeyeenow laa taqrabuu ha u dhowaanina asalaata salaadii ha u dhowaanina oo ha tukanina walxaal idinkoo antum idinkoo sukaaraa kuwa sarkhaansan ah xataa taclamuu ilaa aad ka ogaanaysaan maa taquuluun waxa aad ku hadlaysaan oo miyirku idin soo noqonaya walaa junuban xaalaatiina kuwa janaabo qabana oo wax qubays waajibiye uu ku dhacayna salaadii ha u dhowaanina ilaa caabirii sabiilin kuwa musaafiriina mooye inaad tihiin oo markaa biyo waayey markaasna gogobays baa idinku waajibaho aayadda qaybteeda damaan ugu tegi doona xataa takhtasiluu ilaa aad ka mayrataan oo macnaha ama biyihii aad ka heshaan salaadii ha u dhowaanin
haddaan amaakinu salaam masaajidda aynu marrana waata yaa ayuha aladiina warray kuwii aamanuu rumeeyeeno laa taqrabuu ha u dhowaanina asalaata ay amaakini salaa masaajidii ha u dhowaanina oo ha gelinina walxaala antum idinkoo sukaaraa sarkhaansan jamaacadana haddii waajib bay ahaydoo masaajiddaa lagu tukan jiray mar haddii qofkii liyihi masaajidkii ha gelin dee salaadna tukan maayo wey intaa sarkhaanka ku jidhaan masaajidka ha u dhowaanina salaadna ha u aadinina macnaha salaadba ha tukanina wey xataa taclamuu ilaa aad ka ogaanaysaan maa taquuluun waxa aad ku hadlaysaan walaa junuban idinkoo ahna kuwa jinaabo qaba xaalaad tihiinna amaakintii salaada masaajidii ha u dhowaanina oo ha gelinina ilaa caabirii sabiilin jid kuwa goynaya mooye oo qofka junubka ah inuu irtaa ka soo galo masaajidka oo kaa ka baxo waa loo ogolyahay laakiin masaajidka inuu dhex fadhiisto looma ogola wax macnaha qubeys waajibiyey qofka haddii uu markaas uu qabo xataa taqtasiluu ilaa aad ka mayranaysaan hadda markaad soo mayrataan masaajidka waad ku nigaanaysaa wain kuntum haddaad tihiin mardaa kuwa xanuunsan oo markaas biyihii inaad isticmaashaan aad awoodi weydaano biyihii waxaa dhihi qofku hadduu mayrto ama uu weesaysto xanuunkaa ku kordhaya ama caafimaadka waa kadib dhacaya aw calaa safarin ama safar korkiibaa saaran tihiin aw amase jaa uu yimaado axadun axad oo minku idinka mid ihi min alqaa'iti meeshii loo kortegayey oo gudnaydoo marka qofku kortegay isku qarinayay qof idinka mida uu ka yimaado aw amase laamastum aad u galmootaan annisaa dumaradii intaasoo dhan oo falam tajiduu mardaaga macnaha inta ka damaysa wey oo falam tajiduu aydaan helin maaan biyo aad ku weysaystaan ama aad ku qubaysataan fatayamamuu gogobaysta baa ilaahay u qasta saciidan saciid u qasta dayiban oo daahir ah famsaxuu ku masaxa saciidkii biwujuuhikum wejiyaalkiin wa aydiikum iyo gacmihiin in allaha allah kaana wuxuu ahaaday cafuwan allaha cafin badan gafuuran oo dembi dhaafid badan wain kuntum haddaad tihiin mardaa kuwa xanuunsan oo xanuun dartiis biyihii la isticmaali waayey fatayamamuu saciidan dayiba ayaa toos ugu xiraysa aw amase calaa safarin safar haddaad saaran tihiin haddii safarka waa goorma falam tajiduu maaan baa u noqonaysa oo biyo aad weydaan markaa gogobaysta aw amase jaa uu yimaado axadun axad oo minku idinka mid ihi min alqaa'idi qaa'idka asal ahaan waxaa la yidhaahdaa meesha godan qofku markuu kor tegayo meel godan buu galaa badan isku asturayo laakiin waxaa loo jeedaa wixii qofka ka imaanayay ama kaadi ha ahaato ama saxara ha ahaato ama wixii kaloo ka imaanay markii macnaha wax idinka yimaadaan oo labadii jid wax idinka yimaadaan wey oo weysadii idinka jabto ow amase laamastum aad jimaacdaan annisaa dumaradii lamsigan culimmadu laba qowl bay ka leeyihin imaam shaafici raximahullahu tacaala isagu wuxuu yidhi waaba taabashada caadiga ah meel kastoo jirkiisa ka mid a qofku ha ku taabto qofta dumarka ah oo qaangaarka ah oo maxramkiisa aan ahayn xaalkiisaba ha ahaatee weysadii waa ka budi markaa waa inuu weesaysto laakiin culimmadu waxay u badan yihiin xanafiyada kale waxay yidhaahdeen hadduu maantuna isku xoqayo weysadii ka buri mayso oo salaadii toos buu u tukanaya laakiin labada madhab oo kale ee maalikiyada iyo xanaabilada iyagu waxay yidhaahdeen markuu shahwo ula jeedo oo dan hadduu ka leeyahay markuu taabto xaaskiisa ama ciddii kale markaas baa weysadu ay ka buraysaa laakiin laba qof wax kala gadanaya is ag maraya gacantii isaga dhacday saddexdaas imaanba waxay yidhaahdeen waxba ka buri maya saasaana xoog badanoo cabdullaahi ibnu cabbaas waa ku dhaaran jiray oo laamastumu nisaa in loo jeedo galmadii ama jimaaci in loo jeedo ee taabashada caadiga ahayd inaysan ahayn saasaana raajix insha allahu tacaala xaaskaaga haddii mar galmood aanu dhicin ama dan aadan ka lahayn haddii aad istaabataan waxba kaa buri mayaane salaadaadii tuko awaladaa weyse qabtay oo falam tajiduu aydaan helin markaas waxyaalahaas qubeyska waajibinaya ama weysada waajibinaya idinku dhacaan maan biyo aydaan helin fatayamamuu gogobaysta saciidan saciidka culimmada qaarkood waxay yidhaahdeen wax kas dhulka ogadiisaa wey geed dhagax ciid laakiin sida raajixa ah saciidka nebigaa fasiray ciid baa loola jeeda dayiban oo daahir ah ku gogobaysta famsaxu ku masaxa biwujuuhikum wejiyaalkiina mariya intii laga weysaysanayay wa aydiikum iyo gacmihiina labadaa kaf weeye gudaha iyo bannaankaba in allaha allah kaana wuxuu ahaaday cafuwan
الله عفو بدن غفورا ودم دافد بدن وبالله التوفيق صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النفس والشيطان إن خالفتها